anigoo dabaalanaya ayay walaashay iga bixisay dharkaygii dabaasha maadaama aan indhoole ahay waxay iga xaday mid kale oo aan watay dabadeedna way carartay kuma aanan dhiiran inaan daba ordo walaashay hore ayay u gaartay xeebta waxayna qaadatay dhammaan dharkaygii waxaan bilaabay inaan ooyo wax yar kadib waxaan maqlay dad badan oo u soo socda harada aad ayaan u baqay nin ka mid ah xitaa wuxuu damcay inuu biyaha soo galo isla markiiba waxaan biyaha ku tuuray si aan u joojiyo balse waxba ma tarin walaashay qaaliga ahna waxay duubaysay dhammaan dhacdada iyadoo qorshaynaysay inay internetka ku faafiso nasiib wanaag gabar ayaa soo dhex gashay waxay ka eriday ninkii waxayna igu duubtay tuwaal kadibna waxay igu celisay xeebta markaas ayaan ammaan helay si kastaba ha ahaatee waxaan go'aansaday inaan ka argoosto walaashay maalin ay walaashay ka walwalsanayd muuqaalkiisa ayaan shanleygii dhulka ku riday anigoo hoos u foorarsanaya si aan u qaado ayaan taleefankayga ku sawiray astaan ceeb ku ah walaashay kadibna sawirka ayaan internetka ku daabacay si dadku uga qoslaan walaashay waxay isku dayday inay i joojiso balse waa goor dambe ahayd kadibna waxaan sariirteeda ku riday boorso miro qudhmay markii aan fasalka tagnay qof walba wuxuu dareemay ur xun balse walaashay ma aysan ogaan keliya markii wiil u soo dhawaaday oo u sheegay ayay fahamtay meesha urku ka imanayo markaas ayay garatay in anigu sameeyey waxayna ii timid si ay i weydiiso waqtigaas aad ayaan isku faanay walaashay waxay ogaatay inaan dhiig baxayo balse iima aysan sheegin waxay igu kaxaysay bartamaha fasalka halkaas oo ay igula ciyaartay wax yar kadib qof ayaa arkay surwaalkayga wuxuuna bilaabay qosol walaashayna aad bay u qososhay markaas ayaan garwaaqsaday sida xaaladdu u ahayd mid ceeb ah ugu dambayn waan ooyey nasiib wanaag waxaan internetka ku bartay saaxiib wanaagsan waanan isku faanay walaashay hortooda waxaan go'aansaday inaan ballan la yeesho laakiin waxa aanan ogeyn ayaa ahaa in saaxiibkii internetka uu ahaa khiyaanoole wuxuu igeeyey jardiino halkaas oo uu si qarsoodi ah taleefankaygii uga xaday kadibna wuxuu igeeyey kayn wuxuuna qabtay gacantayda anigoo cabsi qaba ayaan iska sii daayey oo isku dayay inaan cararo balse si kama ah ayaan u dhacay waxaan dareemay xadhig ii soo dhowaanaya balse si lama filaan ah ayuu isagu u dhacay walaashay ayaa ahayd midii garaacday oo miyir dhilay waxay ogaatay in ninkaas uu i khiyaanaynayo waxayna i raadinaysay waxay taleefankaygii ka heshay kursi jardiinada yaalay si degdeg ahna way ii soo gurmatay